السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo saaxiibayaal haddii tahay markii ugu horeysay halka soo gaartay fadlan ha ilaawin inaad barta cas taabatid subscribe-ta waxaan soo gelinaa muuqaalo xiiso leh oo ku saabsan musalsalada caalamiga iyo weliba sidoo kaleeto kuwa Soomaaliga gaar ahaan filimka habboon ee Soomaalidu aad ku xiisayso muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waraysigan waxaa la yeeshay Ducaale sidaad ogtihiinba waxa uu filmka ku dhigayaa inuu yahay odayga islaanta Amran iyo sidoo kaleeto aabaha Jamaal iyo Ismahaan iyo Xirsi ninka kaliya ee imika rajada ugu weyn ka qabto habboon inuu dib u soo celiyo isla markaasina waa arrintii mushkiladii dhibta ugu weyneed u xalliyo hadda waraysiga waxaa lagu weydiin doonaa meesha uu ku dhashay qaabka lagu soo xulay shaqadiisu waxa ay tahay waxa uu ka aaminsanaa filimka ma noqdo sidii uu rajaynayay iyo sidoo kaleeto ma uu soo jeedi doonaa muuqaalo ama musalsalo kaleeto oo xigi doona filimka habboon intaba waxaad kaga bogan doontaan waraysigan marka hore waa maxay magaca dhabta ee Oday Ducaale waraysiga sida uu ku sheegay magaciisa dhabta ahi waa Aadan Afey balse waxa uu sheegay in filimka magacii loogu bixiyay waa magaca Ducaale uuba ka dheeraaday ama uu ka caansanaaday magaciisii Aadan Afey isla markaasina uu magaciisii imika khatar ugu jiro inuu ilaawoba muddo aad u dheer yaa wuxuu ku bedelmay wax yar oo magaciisa hor kuugu sheegay waa Aadan Afey magaaladii oo dhan xataa ku yaqaanay waxay ii bixiyeen Ducaale Oday Ducaale waxa uu sheegay in uu ku dhashay magaalada Marka halkaasina uu ku soo barbaaray sidoo kale waxa uu Ducaale sheegay in shaqadiisa rasmiga ay tahay inuu yahay artiste anigu waxaan ka mid ahay shaqaalaha astaan qofka markuu shaqaale yahayna dabcan maamulka meesha uu doono ayuu mataqaanaa u dirayaa maamulka ii yimaadeen waa la ii soo jeediyey waana ka ogolaaday sidoo kale Oday Ducaale ayaa waxa uu sheegay in uusan filaynin filimku uu sidaasi oo dhan aan u noqon doono isla markaasina uu u noqon doono mid dad badan daawadaan waxa uu sheegay intaas ay siisay dhiirigelin isla markaasina ay ku dhiirigelinayso inuu sii wado jiritaanka uuna ka soo muuqan doono musalsalo fara badan oo soo socda waa jeclaystay yani inaan wax jili karo waa ogaa laakiin ilaa heerkaas inaan wax jili karo uma malaynayn hadda kadibna inaan filmaan badan idin jili doono uma malaynayn billahi haddii aad doonaysid waraysigan oo dhammaystiran waxaad ka daawan kartaa warbaahinta Nala Farax saaxiibayaal si idiin soo gaaraan muuqaalo xiiso leh fadlan halkan oo 5 daqiiqo subscribe sar si ku soo gaaraan muuqaaladuna furo barta cas ama kambaleelka mahadsanidin